tani waa haweeney 90 jir ah oo si farsamaysan looga dhacay 32 milyan oo dollar. Tuugada ayaa isaga dhigay saraakiil amni oo dambiyo dhacay baaraya. Waxay ka mid tahay waayeelka maalqabeennada ah ee ku raaxaysanaya Hong Kong. Si aad u ogaato khiyaanadii ay burcadani ku daldasheen malaayiin dollar, like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan sina faafi muuqaalkan mahadsanid. Tuugada caalamku waa kuwa xirfad badan oo marba marka ka dambaysa si horumarinaya khiyaanooyinka ay wax ku dhacayaan. Waxay u muuqdaan kuwo si xeel dheer ula jaan qaadaya tiknoolajiyadda sida xawaaraha leh u koraysa, maadaama ay jabsadeen bangiyo waaweyn, kombiyuutarro lagu kaydiyo xogo qaali ah, iyo akoonno maalqabeenno ay leeyihiin. Haweeney 90 sano jir ah, maalqabeenna ah balse ku jirta dadka howlgabka ah ee ka soo jeeda Hong Kong, ayaa laga dhacay lacag gaaraysa 250 milyan oo lacagta Hong Kong ah, una dhiganta 32 milyan oo dollar. Burcad xirfadlayaal ah ayaa soo maleegay falkan oo ay ku adkaatay inay haweeneydani fahanto, kadib goortii ay isaga dhigeen inay yihiin saraakiil Shiinaysa. Haweeneyda oo magaceeda iyo sawirkeedaba la qariyay waxa warbixinteeda si wadajir u daabacay BBC, CNN, The Guardian iyo Insider, inkastoo ay qaarkood isticmaaleen sawirkan oo horey loogu keediyay shirkadda Google. Tuugadu waxay u sheegeen inay yihiin saraakiisha amniga dadweynaha oo baaritaan ku sameynaya kiis dambi ah oo ka dhacay Shiinaha. Been macquul ahayd ayay ku asqaysiiyeen haweeneyda, waana sababta ay u aamintay maadaama ay u sheegeen in kaarkeedii aqoonsiga la xaday isla markaana falal dambiyoodyo looga geystay gudaha waddanka Shiinaha. Waxay ugu hanjabeen inay xabsiga dhigayaan, dambina ku soo oogayaan haddii aysan bixin lacago fara badan. Kadib waxaa lagu qasbay in 11 jeer ay lacag ku shubto akoon bangi intii u dhaxaysay bishii 8aad ee sanadkii 2020 ilaa bisha 1aad ee 2021. Booliiska ayaa sheegay in tani ay tahay fadeexadii ugu weyneyd ee lagu dhaco xaafadda The Peak oo ay ku dhaqan yihiin dadka ugu caansan uguna maalqabeensan Hong Kong. Waayeelka hantida badan tabcaday yaraantoodii ama kuwa dhaxalka u helay ayaa ku raaxaysanaya Hong Kong, waxayse ugaar bisil u yihiin tuugada wax ku khiyaama taleefoonada, kuwaas oo badankoodu ka shaqeeyo xuduudaha dhulweynaha Shiinaha. Dhacdadan ayaa la ogaaday markii Zhu Dezai oo ah jaariyadda ama gabadha ka shaqeysa guriga ay dhacdada ku wargelisay gabar ay dhashay haweeneyda lacagta laga dhacay. Waxay u sheegtay inay ka shakiday howlo aan caadi ahayn inay guriga ka socdaan. Warbaahinta maxalliga ayaa ku waramaysa in haweeneydan markii ugu horeysay ee lala soo xiriiriyo ay ahayd bishii August ee sanadkii hore, waxayna ku wargeliyeen inay yihiin saraakiil ka tirsan booliiska Shiinaha. Markaas kadib ayaa raggan tuugada ah waxay haweeneydaas u geeyeen telefoon, kaasi oo ay markii dambe kala xiriiri jireen. Ilaa iyo hadda booliisku waxay kiiskan u xireen nin da'diisu ay tahay 19 jir, balse maalmo kadib isna damaanad ayaa lagu sii daayay. Warbixinada ku saabsan khiyaanada telefoonka ayaa kor u kacay 18% rubicii ugu horeeyay ee sanadka 2021, iyadoo kuwa wax khiyaameeya ay jeebka ku riteen 850 milyan oo lacagta Hong Kong ah. Sanadkii 2020, booliisku waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen 1193 kiis oo dhammaantood ah dhaca telefoonada lagu geysto, waxayna wadarta lacagtaasi ku sheegeen 574 milyan oo lacagta Hong Kong ah. Sanadkii hore haweeney 65 jir ah ayaa lagu khiyaamay 68.9 milyan oo lacagta Hong Kong ah, kadib markii loo maleegay qorshe kan la mid ah oo ay burcadu isaga dhigeen inay ka tirsan yihiin mas'uuliyiinta amniga dhulweynaha Shiinaha.